waxaa la socoteen gudoomiyaha inuu dhowr jeer shalay warbixin ka bixiyay safarkeennii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arrintaas sidoo gudoomiyaha uu sheegay aad iyo aad uga xunnahay dalkan annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono marka waxaan u aragnaana nasiib darro in dawlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jibiso marka taas waxaan rabaa sidaas waa positionkeena waxba iskama bedelin waxaan u arkaynaa tacaddi iyo jibin la jibiyay dastuurka oo dawladdu si bareera oo ula kaca u sameysay xaqna aysan u lahayn intaas marka halkaas aan rabaa inaan ugu gudbo waxaan rabaa wax yar dib aan kugu celiyo Soomaalinimada iyo dawladnimada Soomaalida iyo meesha ay ka timiday waxa ogtiin annaga 60kii aan xorriyadda qaadanay dawladda la soo dhisay dawladna waxa lagu dhisaa constitution sharci lagu dhisaa si hay'adaheeda ay u wada shaqeyn karaan si dadka ay meelayaan ay ugu adeegi karaan dawladda koowaad la soo dhisay ahaday waa dawladda aadan cadde Cabdirashiid ku xigay walid law naxariisto dawladda Maxamed Siyaad Barra ku xigtay waxay ahayd dawlad military 22 sano waxaan soo galnay waqti fawda laga soo bilaabo 19 ilaa 20 isku dayo badan la sameeyay dawladda caalamada la soo dhisay wax badan la isku dayay laakiin ma shaqeeynin dawladnimada hadda socota taariikhdeedu waxay ka soo bilaabanaysaa 2000 macnaha waxaan u wadaa nidaamka hadda socda nidaamkaas waxa lagu soo dhisay wax la yiraahdo 4.5 oo macnaheedu uu yahay dadku inay wax u qaybsadaan qabiil laakiin ujeedada ugu weyn waxay ahayd dadku inay u gudbaan aragti siyaasadeed iyo dawlad madani ah oo u adeegta bulshada Soomaaliyeed wali arrintaas waxa loogu jiraa baadigoob meesha la soo gaaray marka 20kii laga soo bilaabo 2020kii iyo xilligan 2019 yani inta madaxweyne is soo bedeshay iyo inta process la soo maray aad u ogtiin ilaaha ku mahadsan taariikhdaas qaybaan ka ahay aniga iyo dad badan oo kamida ujeedada ugu weyn waxa la saaray dadka Soomaalida helaano nidaam iyagu ay doorteen dawladda iyagu ay leeyihiin oo u adeegta iyaga waxa la socotiin waxa la sameeyay tanaasulaad fara badan waxa loo sameeyay waxay ahayd danaha ummadda Soomaaliyeed in la xaqiijiyo in qof walba Soomaali oo dareemi karo sharafta dawladnimadiisa oo ku sharfanaado ama mas'uul ahaado ama qof caadi ah ahaado waxwaa la xaqiijiyay waxna waa dhiman yihiin marxaladda hadda la joogo waa marxalad aan rabno dalku inuu aado axsaab siyaasadeed laga gudbo 4.5 dadku ay ahaadaan dad afkaar siyaasadeed ku midoobay ee aan isugu xireen deegaan iyo qabiil ay ku tartamaan afkaar siyaasadeed si ay codka ay rabaan u helaan kadibna laga sugaayo wixii ay ballan qaadeen inay fuliyaan dawladdan hadda jirta ee madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo hogaamiyo waxa wax loogu dhiibay doorasho waxa wax loogu dhiibay dastuur waxa uu farayo madaxweyne Xasan Sheekh ka horeeyay asagoo awoodi haysta oo ciidamadii xukuma oo imkaaniyaadkii oo dhan haysta waxa ogolaaday inuu yiraahdo waa la iga guuleystay waxaan u tanaasulay codka baarlamaanka taas maxaa baysu ah waxa baysu ah dastuurka waxa uu nafarayaa 4 sanaba in la helo oo la qaban qaabiyo doorasho cid ku guuleystay xilka lagu wareejiyo lana shaqeeyo la caawiyo inta karaan madaxweyne Xasan Sheekh waxa ka horeysay dawladdeedii oo runtii nasiib u yeelatay inay dhowr iyo 40 sano kadib doorasho halkan ku qabato sidoo kale ana awoodi kara inaan dariiqo badan maro waa la iga guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh ku wareejiyay waayo waxa soo dhan ay u dhacayaan su'aasha muhiimka taas waa haddii madaxweyne Farmaajo oo madaxnimada jecel yahay
xasan sheekh waa jecel yahay aniga waa jecelahay kuwa kale waa jecel yihiin laakiin ujeeddadu waxa waaye in la ilaaliyo sharciga iyo dastuurka haddaan meeshaas xoogaa yara kaftan geliyo aniga waxaan ahay nin jabhada oo wadaada oo xaalkiisa ogtihiin marka waa layga filinaya inaan xukunka ku dhigo marka aan doorashada samaynayana talooyin badan waxay isoo gaarayaan war waxaan dib isaga reexe baashaan hore u soco waxaan dhahay maya ma samaynayo laakiin shayga qariibkaa waxa waaye ruux maraykan ka yimiday ruux ka yimiday yurub oo leh 30 sano soo joogay inuu maalin walba sharciga garab maro arrintaas arrin la aqbali kara ma aha ninkii iska fadhiyey ama ilmihiisa u shaqaysanayay dal nabada ee marka dalka la isku hagaajiyay la yiri ku soo dhawo lagu doortay ee garbaha laga istaagay maanta lagama aqbalayo inuu yiraahdo garoonka kama bixi kartid waxaan rabaa warkayga inuu cadaabo ani garoonka waa laga reebi karaa laakiin hal shay laga reebi karaa waxa laga reebaa sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya waxaan rabaa aan socdo qaraabo salaan aan socdo siyaasadda aan socdo islaan ari raacays haddii ay wacdo tiraayi madan ku qanco inaan u tagi karaa rabaani waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaali inuu lahaa karo dawladda 24 saac oo la soo dhaafay waxaan ka sugaynay inay ka garaabaan khaladkooda maxaa yeelay khaladka aniga layga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin oo Soomaali laga galay waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cunaqabatay waa dad Soomaaliyeed xaqay u leeyihiin inay xilligoona doonaan safraan xilligay doonaan ay ka safraan Muqdisho xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaanaa Muqdisho yimaadaan loo tago marka waxaan leenahay waa sharci darro marraba aniga arrimaha doorashooyinka madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo isku hayeen aad u dhex galo laakiin hal shay aan rabaa inaan idin sheego Jubbaland marka doorashada laga sameeyay aan dhaho Puntland marka doorashada laga sameeyay doorashada yaa qaban qaabiyay dawladda dhexe ma qaban qaabisay mise reer Puntland qaban qaabiyay yaa iga jawaabi kara Puntland maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland bal ii sheega labadooda sharciga u ogolaanaya inay doorasho qaban qaabiyaan doorashada say u dhacday waa laga hadli karaa laakiin labada maamul laba doorasho qaban qaabiyeen mid madaxweynuhu waa ka qayb galay waa tii Puntland midna waa diiday su'aasha labaad waxa waaye xataa haddii dawladdu ay madmadow ka qabto habka ugu habboon oo loo xalli kara ma yahay habkan maxaa ka soo bixi kara tilaabaha khaldan oo dawladdu ay qaadayso waxaan rabaa marka inaan u laabto dawladda waxaa laga rabaa sharciga inay ixtiraamto cidda koobaad oo sharciga lagula xisaabtamaayo muwaadinka ma aha waa dawladda sharciga lagu doorto hadday ixtiraami wayso macnaheeda waxa waa dawlad ma jirto inta jeer dawladdu ay garab martay sharcigana xisaab ma laha haddaa fiirisid mu'asasaadka dawladda ama institutionada dawladda ama hay-adaha dawladda ma qabtaan wixii loogu talagalay waxaan ka bilaabaynaa baarlamaanka maanta awood ma uu leeyahay su-aashaas adinka idin weydiinaa Soomaaliya inuu intoo fariisto si dimuqraadi u shiro u doodo oo waxa ay la taa soo saar awood ma uu leeyahay maya sax waay okay waxaan rabnaa inaan sheegno maxaa caddayn ah arrintaas sheegaya waxa caddaynaya gudoomiye Jawaari iyo dawladdu waa isqabteen in baarlamaanka la kontrolo darteeda Jawaari loo rido saas ma ogteen mise uma ogidina haddana dawladda joogta ama baarlamaanka jooga looma ogola inay shiraan oo qaraaraad qaataan dawladdan waa dawladdii aan ka sugaynay inay noo qaban qaabiso doorashooyinka soo socda haddaysan ogolaa karin in Kismaayo la aado oo ama xaflad laga qayb galo ama loo safro aysan awood u lahayn inay safarkaas la timaado maxay awood u leedahay dawladdan see loogu aamini karaa mustaqbalka soo socda dastuurkii la raba inay dhamaystiraan ma dhamaystirin hanaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano amnigii maanta magaalada Muqdisho waa ogtiin iyo dalka oo dhan meesha uu joogo shalay waxaan haynaa xog ciidamada qaranka ka mid ah
in shabaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen wax ka hadlaa miyaa aragteen dowladda waxa laga rabo inay ka shaqayso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dowladnimadana ay hogaamiso ayadoo raacaysa sharciga waxaa laga rabay amniga inay sugto aniga waxaan aaminsanahay waa ku fashilantay waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha maanta dalka waa aragteen meesha uu maraayo magaalada o dhan waa kala xiran tahay amni ma aha ganacsi xurana ma jiro soo dadkan yay u adeegayaan aan isweydiino cidday u adeegaan yaa waayo shaab wax kama qabtaan waxay maalin walba daba socdaan siyaasi war adiga siyaasiyaa tahay sharcigaa ku ogolaatay aan hogaamiso kan isla sharcigaasaa wuxuu u ogol yahay inuu mucaarad ahaado agtaada xisbi ku dhisto haddaadan intaas fahmi karin waa khaldan tahay waxaa la socotiin siyaasiyiinta ama axsaab ha naqdaano ama ha naqdaano madax maamul goboleed dhibaatooyinka dowladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dowladda xiriir la leh oo xura ma jiro soo beentay bal carku waa kaas sheega maamul goboleed xur ah oo go-aankiisa qaada kara oo dadkiisa matela oo qanacsan oo dowladda ay wada shaqeeyaan ma jiro jubbaland isma hayaan puntlandna isma hayaan galmudugna waxa ka socdaa waad ognahay hirshabeelle waxa ka socdaa waa ognahay baa iyo bakool wixii ka dhaca waa ognahay marka yaa loo shaqaynaya dowladdan yaa u shaqaynaysaa waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo aniga waxaan ahaa qofka ugu badan oo lagu tuhmo dowladda inuu u jilcan yahay inuu u dhow yahay mararka qaar la yidhaha xataa heshiisaa dhex maray ma aha sidaas aniga dowladda waxaan uga aamusnaay turid aan u turaaya maxaa yeele waqtigaa iga soo galay saaxiibo qaalihi aan ku waayey kuwa ku dhaawacmay kuwa xoolahooda ku waayey yacnii inay degdeg ama si khalada wax u halaabaan ma rabo marka aniga waxaan ku jira dadka dhahaya dowladda 4 sanaha loo dhaafo okay 4 sanaha loo dhaafo haddaysanba ogolaa karin waxyaabaha xorriyaadka asaasiga oo dadku ay leeyihiin doorasho annaga iyaga aan wada gelayno see u wada geli karnaa bal ii sheega garoonka magaalada muqdisho waxaan u malaynaa dhowr iyo 10 sano inuu xiraa markay maxkamaduhu furayeen sax wala la 15 sano dowladdii ku meel gaarkaada aan hogaaminayay waxay ku guulaysatay ugu yaraan terminaalka inuu noqdo meel laga soo degi karo garoonka intaas iga soo gashay haddii aniga lay ogolaa waayo cidda loo ogolaa kara bal ii sheega waa su-aal oo maxaan u socdaa aniga waxaan u socdaa kismaayo dowladda waxay yeelan kartaa inay tidhaahdo waxaasaan ka qabnaa annaga raali naga ahaaw waxaasa samayna waxaan rabaa nuqdo muhiima inaan u gudbo ma og tihiin horta dowladda iyo aniga sharciga inaan u simanna waxaan u wadaa dowladda iyo muwaadiniintu sharciga waa u siman yihiin sharci dowladda wuxuu siinaa sharciga awood iyo waajib anigana wuxuu siinaa awood iyo waajib ka muwaadin hadduu sharcigu ii ogol yahay kismaayo inaan aado kismaayo meel gaara ma ah waa soomaaliya hadduu ii ogol yahay dowladdana waa u ogol yahay garoonkaas haddii farmaajo uu ka bixi karo xaq u leeyahay anna waa ka bixi karaa way fahmaanta umalina hadduu sharciga ii diida asagana waa u diidaa macnaha waxaan rabaa inaan fahmno waxa la isku haya waa sharciye 4 sano madaxweynaha kama hadlaynaa dhahana waa ogolna laakiin muxuu sameynaa madaxweynaha iyo dowladdiisu maxay ka shaqaynayaan waxay ka shaqaynayaan waxa sharcigu u ogol yahay hadday ka leexdaan marka maxaa dhici kara waxaa dhici kara dowladnimada inay burburto maxaa yeelay dalkan weli dib u heshiisiin dhaba iyo wax la isku ogyaho adag oo dowladnimada Soomaaliya beys u noqda ma jiraan oo ogtiin sida wax ku soo wadnay waxa lagu soo waday wartan tanna bal fiiri wartanna fiiri hadday naqato anaa lay doortay oo waxaan rabaan samaynayaa waxay furaysaa khad aan wanaagsanayn dowladda marka waxaan rabaa inaa ilaa ka jooga meesha aad ku socotiin sharciga hareer maraysin ka joogta waxa la idinku ixtiraamayo waa sharci maxamed cabdullaahi farmaajo asagoo hoteelkan aan iga fogeyn degan aan madaxtooyo lagu wareejiyay ma soo beentay maxaa loogu wareejiyay xoog ma loogu wareejiyay xasan sheekh isla hoteelkan asagoo degan lagu wareejiyay maxaa loogu wareejiyay sharcigii qofkii lagu doortay hadduu ixtiraami waad ixtiraamaysa horta ma la arkaa danna Soomaaliya uguma jirto hadday marka dowladdu waajibkeeda garaweysay ka gaabis hadday sharcigii burburisay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo dalkan ummado badan dhaqaale ku baxshay inaan la hadlo
annaga waxaan u dagaalamaynay oon u tanaasulaynay waxay ahayd dowladnimada Soomaaliyeed noo muuqato maanta waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkan meesha u socdo haddaan shabaab lala diriraynin oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof xura oosan jirin waxa dhala kara baa garan kartiin annaga ma rabno inta aan iska aamusno markay waxa laabaan inaan indhaha taagno dowladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed waxa laga maarmaan inay intay isu yimaadaan tala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiid waa waxaan ka tagi karo wax ka weyn ah halaysa waxaan arkaa dowladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan axsaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culamaa u diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax galaho Soomaaliyeed aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadi lahaa maxaa yeelay sharci darradan say u socoto waxaan la maleysanaynaa dhici kara dadkaanu kulligooda baasaboor haystaan waa baxayaan meeshii rabaanay aadayaan caruurtooday aadayaan dadka aan meelay aadaa lahayn waa dadkan iyo dadka lamid ah waana dadkii loo soo shaqeeyay oo loo taagnaa danahooda in la fuliyo marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u maleynayaa warkaygu aad inuu cad yahay wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkayga caddaado dowladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dowladda inay burburto kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo asoo boorsidiisa wato suudkiisa wata anaa magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resource ma jiraan asaga mustafiid ah asaga ka faa'iideystay xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxbaa naga galay mana ogo inuu burburo dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop